ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى waxuu kitaabkiisa munazalka oo muxkamka ku bayaaniyey in ay laazim tahay axad walba inuu ogaado allah subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa awoodda iyo cadamada alle qofku inuu si dhaba u aamino arrintaas ayada ah allah subxaanahu wa tacaala aad ayuu kitaabkiisa ugu bayaaniyey waxuuna rabbi caddaynayaa subxaanahu wa tacaala in qof walba ay waajib ku tahay inuu ogaado allah mooye macbuud kale oo xaq lagu caabudaa inuusan jirin macnaheeda waxaa loola jeedaa qofku inuu si dhaba u garto kelimada tawxiidka macaanida ay iska leedahay iyo qiimaha ay ku fadhiso iyo waxa laga doonaya dadka muslimiinta inay kelimadaas ayadaa ku gartaan ama ay ku fuliyaan sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nabigiisa ku yidhi nabi alle ogaaw allah mooye macbuud kaleo xaq lagu caabudaa inuusan koonka jirin rasuulka lama odhanin ku hadal ee waxaa la yidhi ogaaw waa inaad ku cilmi yeelataa garataana kelimada laa ilaaha ila allah waa kelimada allah subxaanahu wa tacaala ayada sababteeda cirka sare ugu qaaday dhulkana u gogleeyey waa kelimada dadka u qaybisay laba jameecoo ka kala dhigtay fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir kooxna waa kooxda jannada kooxna waa kooxda naarta saciire la yidhaah tegaysa kelimadaas ayaa dadka inqisaam ku samayday oo kooxna ka dhigtay mu'miniin kooxna ka dhigtay mulxidiin naarta jahanabada lagu waariyo waa kelimada sababteeda suuqa jannada iyo suuqa naarta loo sameeyey waa kelimada sababteeda calanka jihaadka sare loogu qaaday oo seefta gasha looga bixiyey si gaalada loola dagaalamo muslimiintu sharaf iyo qiimo u yeeshaan waa kelimada miisaanyaalka ayada darteed loo sameeyey kelimadaas waxaad arkaydaa qiimaha iyo qaayaha ay iska leedahay axadka kelimadaa garta oo si dhaba u fahma adduunka rabbi waxuu ka ilaaliyaa dulliga aakhiradana waxau rabbi ka koriyaa cadaabka iyo ciriiriga liajli haadaa waxaa lagama maarmaan noqotay in kelimadaas ayadaa macnaheeda la garto waayo qofka muslimkaa ee macnaha kelimadaa fahmaa wixii rabbi waajib uga dhigay ayuu fulinayaa wixii rabbi ka xarimana wuu ka tegayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay xadiis muslim ku sugan markuu kelimadaa ka sheekaynayey wuxuu odhanayaa sala allahu calayhi wasalam ma jiro qof yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah kelimadaas qof ku dhawaaqa oo allah mooye macbuud kale inuusan jirin qiraa ma jiro aniguna rasuulkii alla aan ahay oo sidaa aaminee ku dhaqmay ilaa hadduu jira buu rasuulku yidhi falaa yuxjabu cani aljanna jannada lagama xijaabo naartuna jirkiisa waa ka mamnuuc jannada allena looma diido haddaba axad walboo muslima waa inuu rabbigii ka baqaa kitaabka qur'aanka waa inuu bartaa sunnada nabiga waa inuu dhab u fahmaa waxa ay u diraanna waa inuu fuliyaa waayo waa inaad ogaataa axad walboo islaamahow laga bilaabo kitaabka qur-aanka min suurati alfaatixa ilaa birabbi innaas waxay ka hadlayaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah macnaheeda oo kale ah wax kaloo diintu ka sheekaynaysa ma lahan sida diinta islaamkaoo dhan laa ilaha illa allah uga hadlaydaa waa sidee waxay uga hadlaysaa waxa weeye aayad walboo kitaabka qur'aanka ka mida ama waxay ka sheekaynaysaa dadka alla caabuda
sida ay u liibaanayaan oo janno u gelayaan iyo cibaadada dadka laga rabo, ama waxay ka sheekaynaysaa dadka alla diiday oo diinta diiday ciqaabka ay leeyihiin iyo sida xaaladoodu tahay. idan waxaad ogaatay kitaabka alloo dhan waxuu ka warramayaa laa ilaaha ila allah macnaha ay iska leedahay, macnaha ay iska leedahay. dadka khayrka ku helaya iyo dadka ku cadaab tegaya ayaa la kala bayaaninayaa. liajli haadaa allah subxaanahu wa tacaala suuradda qur'aanka ugu horraysa waxuu ku bilaabay isaga ammaantiisa. qofka rabbi ammaanoo rabbi weyneeye ayaana rabbi cibaadadiisa la imaanaya. waayo allah wuxuu ku bilaabay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yawmi iddiin. allah haddaad tilmaantiisa doonaysid allaha mahadda iska lahu waa allaha caalamka makhluuqa ku nool oo dhan abuuray oo ku tasarrufaya oo isagu milkiyey oo waxay doonaanna siinayaan. waa allaha naxariis muslim iyo gaal kala gaarta bixiyey, naxariista mu'miniinta u gaarka ah oo jannada ay ku helayaan bixiyey. maalinta qiyaamada oo wax la kala saaro allaha milkiyey weeye. allahaasu keligii ayuu mutaystay in la caabudo oo laga amar qaato, cid kaloo cibaado mutaysatay ma lahan. liajli haadaa ayuu allah kitaabkiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut. ummad walba waxaan u dirnay mid risaalo sida oo dadka ugu yeedha inay allah keliya caabudaan ooy ka durgaan daaquudka iyo wax alla waxa rabbi ka sukeeyoo la caabudayo. ummad walba waxaan u dirnow allah leeyahay rasuul, waa mid risaalo sida, waa mid xagga rabbi war ka sida. waxuuna warka ow sidaa yahay ummaddana ugu yeedhayaa rabbiga idin khalqay keligii caabuda, rabbiga idin khalqay keligii barya, rabbiga idin khalqay keligii ka cabsada, rabbiga idin khalqay keligii khayr ka rijeeya, rabbiga idin khalqay keligii talada u dhiibta. sidaas ayuu nabi walba ummadda loogu diray ugu yeedhayay. waxaadna ka fogaataan daaquudka. daaquudka marka laguu sheegayo waxaa la yidhaha wax kastoo rabbi ka sukayo dadku qadarinayaan oo ay cibaadada iyo xadgudub ku samaynayaan. laakiin waxaa ugu madaxa dawaaqiidda dhowr. dawaaqiidda waxaa ugu madaxa marka ugu horreyda shaydaanka. shaydaanku waa daaquud. asnaamta la caabudayo alla ka sokaydo dhagaxda ama la tabarrugana waa daaquud. waxaa kaloo daaquuda oy dadku dawaaqiidda ka dhigtaan xoolaha sida ay adduunyada u jeclaadaan. waxaa kaloo daaquud noqday qabiilka oy dadku ehelkooda u haystaan la-aantii inaysan noolaan karaynin. arrimaha noocaasoo dhan waa dawaaqiid. waxaa lagaa doonaya inaad ku gaalowdid. marka lagu leeyahay daaquudka ka durug waxaa laga wadaa wax rabbi ka sukeeya ha tala saaran, ha ka baqanin, waxa weydiisanin. cidda aad khayr ka rijaydaa allah kaliya ha noqotay subxaanahu wa tacaala. laakiin qofka odhanaya rabbi waan caabudayaa marka dhib soo gaarana alla cid aan ahayn u cabanayaa waa axadaan alla ku xirayn kuna kalsoonayn subxaanahu wa tacaala. waayo allah wuxuu yidhi faman yakfur biddaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwusqaa la infisaama lahaa. axadka ku gaalooba wax kastoo alla ka sukeeya oo la baryo ama la tala saarto oo rabbigii si dhaba u aaminoo isu dhiiboo qaddo iyo qadar iyo aakhiro iyo rasuul rumeeya waxau qabsaday xarig lagu kalsoon yahay oo aan nudgo' lahayn. xarig aan go'ayn ayuu qabsaday. xarigga aan go'ayn waa maxe? waa kelimatu tawxiid oo ah laa ilaaha ila allah walaasheedna la socoto ah muxammadu rasuulullah. waa xarig aan nudgo' lahayn. axadka kelimadaa ka laalaadsadaa jahannabo kuma dhaco. axadka kelimadaa ka laalaadsadaa meel xun kuma simbiririxdo. ciriiri walbana meel uu uga baxow alla u sahlaa. waa qofka ku kufriya waxa rabbi ka sokeeyee alla addoon u noqdo si dhaba alle isugu dhiibo rasuulka ku dayda sala allahu calayhi wasalam. waatuuna rasuulku ku yidhi xadiid ku sugan muslim iyo kayrkiis man qaala radiitu billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxammadin nabiya wajaba lahu aljanna. macnaha aayaddu sidaas ayuu noqonayaa qofka allah rabbinimo uga raalli noqday oo keligii ka amar qaatay oo keligii u sujuuday oo keligii beriyey oo markuu nadraya keligii u nadray oo keligii alla darsi keliya wax u bixiyey
oo diinta islaamka nolol iyo mabda iyo dhaqan ka dhigto ayada keliya ku camal falay oo nabi maxamed mooye cid kale aan ku dayan sala allahu calayhi wasalam jannada allah u waajibtay jannada alle qofkay u waajibtana jahanabaa laga dhowraa axadka jahanabo laga dhowrana alle jaliila ayaa ka raalli noqda axadka allah oo ka raalli noqda silax iyo saxariirta iyo saqara intaba waa laga dhowraa axad walbow rabbigaa ka cabso oo rabbigaa addoon rasmiya u noqo waxay ku kufrinayaan dadka allah rumeeyey oo rasuulkiisa rumeeyey in alla inta alla ka sokaydoy dadku waaweynaynayaan oy qadarinayaan laga yaabaa inuu ku leeyahay allaan caabudaa subxaanahu wa tacaala cibaadadan aan shaqo ku lahayn misaalan waxaa suurtagal ah inuu yaha waan caabudaa alla waan dukadaa laakiin markuu salaada ka baxo wax alla wax uu doona u samaynayaa markaasuu ku leeyay allaan caabudaa cibaado lama yidhaha noocaan cibaadada laguu sheegayaa waxa weeye inaad rabbi carabkaaga ka ammaantid qalbigaaga ka weynaysid xibnahaaga oo dhanna ay diinta alla u shaqeeyaan rabbi xugun ou soo dejiye mooye wax kale waa inaadan dhaqan ka dhigan marka dhibku soo gaaro cid aan alla ahayn waa inaadan u caban markaasaa la odhanayaa qofku alla ayuu caabuday alla ayuu ka amar qaatay subxaanahu wa tacaala axad walbow rabbigaa waxdaaniyadiisa sug shirkiga shayga la yidhaahyou kuu soo xaluulanin waayo allah waxau kitaabkiisa ku yidhi wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-a waa rabbigiin caabuda oo allah ha u shariig yeelinina cibaadada cidna allah ugu darinina alla cid kale ha la baryinina ilaahay kitaabkiisa in wax lagu xakumo xukun kale ha ku qaldinina oo dimuquraadiya ha dooranina oo qodobo iyo xeerar qabiil ha samaysanina oo marka dhib idin soo gaaro rabbigiin u calaacala oo alla darti sadaqada u bixiya oo alla darti nadarka u gala oo alla darti wax u sameeya markaas ayaad shirki ka durugteen intaa wax ka mid a cid kale haddaad u iishid mushrik baad noqotay mushrigna jahanabaa lagu shidaa jahanabo in lagugu shido diyaar baad u taamiya dadka aayadaha alle siday yihiin aan ugu dhaqmin ee qaar ka dhaqaaqa ama kulligood ka tegay alla muxuu yidhi ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu aلsamaa walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaad wakadalika najzi almujrimiin waxuu rabbi odhanayaa dadka aayadaheenna beeniyey oo dhaqankooda ka tegey oo inay alla caabudaan ka kibroo iskala weynaaday salaada alla u dukada maadaa igule ku jawaabay xaaraanta iska deeya maadaa ila xisaabtamaya ku jawaabay inayay xijaab ka qaado jirkayga maxaad ka eegaysaa ku jawaabay kitaabka alla wax ku xakuma diintu dadkay gacmaha goydaa ku jawaabay cirka looma furo albaabadiisa alla yidhi oo macnaheeda nabiga ayaa xadiid ku fasiro waxaa loola jeedaa camalkoodu samada uma koro oo ilaah wax khayra kor uma geeyo waxuu kaloo allah daba dhigay walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaad jannada alla ma galaan neef geela ilaa uu cirbad duleelkeeda ka maro neef geel ah rati geela intay soo hogaamidid cirbadda wax lagu taso duleelkeeda meesha laga geliyo dunta ma mari karaa sida ay mustaxiil u tahay ayaa janno inuu galaa ay qofkaa mustaxiil u taho alla leeyahay subxaanahu wa tacaala misaalku alla bixiye u fiirso kitaabka ilaahay in yar oo kamida qofka layaca ama ku cayaara ama xaqira ama diida ama la dagaalama ilaah waxuu ballan qaaday inuusan janno gelin oysan suuragal ahayn sida aysan u suuro gelin neef geela inuu cirbad dhex maro neef geela inuu cirbad dhexdeeda ku lugaya ma suuro gashaa laa sidaas oo galaysan suuragal u ahayn buu alla yidhi dadka mujrimiintaa saas ayaan ku amaalmarinaa buu alla leeyahay lahu min jahannama mihaad wa min fawqihim ghawaas naarta jahanaba gogol bay ku leeyihiin korkana waxaa ka saaran daboollo jahanabo ah dadka daalimiintaana saas ayaa lagu amaalmariyaa buu allah yidhi subxaanahu wa tacaala in jahanabo lagu daboolo in meel xun lagu sibciyo in dhibka nuucaasa loo geysto dadka nuucaa la yeelayaa waa dadka rabbi caabudi diiday marka dhib soo gaara alla baryi waayey marka wax la xakumayo kitaabka qur-aanka xukunkiisa diiday marka la wada hadlayo aayadaha qur'aanka aan maqli karin saas ayaa alla u gelaya waa mujrimiin ileed laakiin dadka guulaysanaya yay yihiin waaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun dadka allaha iyo aayaadkiisa iyo camalka saalixa intaba la yimid oo alla rumeeyey oo aayaadkiisa rumeeyo rabbi si dhaba u caabuday waa reeraha jannadana way ku waarayaano way guulaysanayaan buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala
axad walbow rabbigaa waxdaaniyadiisa dhab u sug kelimada tawxiidka laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye allah mooye cid kaloo xaq lagu caabudaa koonka ma joogto qofka laa ilaaha ila allahu yidhi wuxuu yidhi wax kastoo alla diiday waan diiday wax kastoo alla ogol yahana waan sugayaa xumaan oo dhan baan rabbi ka anfinayaa wanaag oo dhanna allaan u sugayaa cid la caabudoo loo khuduucoo loo rukuucoo laysu duleeyo oo la tala saartoo loo calaacaloon alla ahayna koonka kama jirto qofka sidaa kelimada ah ku dhawaaqay ee lagu keri laayay allah kugu filan ka warran rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii sixir iyo wax la sheegay waxaa allah ku yidhi qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas nabi alle waxaa tidhaa allaha rabbiga khalqaan magangelayaa waxaan magangelayaa allaha dadka khalqaan magangelayaa sidaa dheh allaha dadka khalqaan magangelayaa allaha dadka hantaan magangelayaa allaha la caabudaan magangelayaa sidaa dheh baa nabiga lagu yidhi cid kale oo la magangeli karoo wax la weydiisan karoo loo cabo karaa ma jirto rabbigaa keliya magangel baa nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam waa allaha makhluuqa khalqay oo dadka xayaatada geliya iyo wax alla waxa koonka jooga rabbigaas keliya magangel baa lagu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam marka haddaba xaaladdu hadday sidaa tahay oo rabbi keliya in la caabudo mooye wax kaloo wanaag lagu gaaraya aysan jirin qof walba waxaa ku waajibay inuu cibaadada alla sugo lianna allah wuxuu yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah allah wuxuu amray idinku waajibiyey muslimiin alla mooye cid kale inaanan caabudin rasuulka ayuu allah sidaa ula hadlay allah mooye cid kale inaan la caabudin oon cid kale la baryin oon cid kale laga baqan ayuu alla waajibiyey amarkaas ayuu allah bixiyey allah wuxuu aayad kaloo kitaabkiisa ka mida ku yidhi yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waaladiina min qablikum lacallakum tattaquun wardadoo waxaad caabudaan allaha adinka xayaatada idin geliyey kuwii idinka horreeyey xayaatada geliyey markaas ka gadaal waxaa laydinka rijaynaa inaad alla ka cabsataan rabbiga adinka xayaatada idin geliyo kuwii idinka horreeyey xayaatada geliyey tilmaamaha lagu yaqaanaa waa sidee wuxuu allah yidhi alladii jacala lakum alarda firaasha waasamaaa binaa'a waanzala min alsamaa'i maa'an faakhraja bihi min asamaraati risqan lakum falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun rabbiga caabuda laydin leeyahay waa allaha dhulka idiin goglay waa allaha cirka idiin dhisay waa allaha samaawaadka biyo idinkaga soo dejiyey oo dhulka barwaaqo iyo arsaaq idinkaga soo saaray si uu idinkugu dheefiyo dhulka yaa fidiyey allah cirka yaa dhisay allah midhaha yaa dhulka ka soo bixiya allah roobka yaa ka keena cirka allah cid kaloo alla la maamusa miyaa jirta waa maya cid wax maamuli kartaa hadday jirto abaaraha adduunka ku dhacay maa dadku roob keensadaan colaadda iska taagan maa dadku iska damiyaan waxaad arkaysaa wax walba waxay ku xidhan yihiin awood allah rabbi wuxuu yidhi rabbi waa midka sidaa idin yeele alle andaad iyo wax lamida ha u samaynina adinkoo og inuusan alle andaad iyo wax lamida lahayn subxaanahu wa tacaala aayaddaa markii la akriyey ayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu saxaabi la yidhi cabdullahi ibni mascuud weydiiyey sida ku sugan saxiixaynka dembi alla laga gala keebaa ugu weyn ayu dembi acdamu cinda allah rasuul allow dembi alla laga galo maxaa ugu weyn buu yidhi wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak dembi alla laga galo waxaa ugu weyn inaad u samaydid wax alla lamid ah oo dhinac jooga oo sida alla loo baryo isagoo alla adiga ku khalqay subxaanahu wa tacaala ma cid alla kula abuurtaa jirta riximka hooyada ma cid alla kaala soo saartaa jirta laa ay leeyihiin oy adigu hanteen ma joogaan buu alla yidhi waa midda labaadee ilaahay shirka lama ahan waa midda saddexaade ilaahay kaalmo iyo garab uma ahan waayo marka laleeyahay qofkaasu waxbuu ka qaban karaa saddex waxyaalood baa mid ka mida loo baahan yahay inuu isagu shayga milkiyey iyo inuu shayga qofka shirka kuleeyahay iyo inuu u kaalmaynayo haye wax alla waxa cirka iyo dhulka ku nool ee addoomma ah
cirka iyo dhulka waxa jooga in yar kuma lahan buu alla yidhi anaa milkiyo alla leeyahy shirka ilama ahan oo ayagu dhinac ma lahan oo ilama yani wax igalama qabtaan marka aan samaynayana kaalma kama dalbow alla yidhi subxaana wa tacaala haye wax uu kaalma alla weydiista ma lahan marka lagu samaynayo sida uusan alle cidna ciidan uga doonanin marka oo wax kuu qabanayo cidna ciidan u doonan maayo markau ku cadaabi rabana cid kale kuusoo kaalmaysan maayo ilaahay united nation kuusoo kiraysan maayo iyo beelayo daran bal isaga ayaa ku cadaabaya subxaana wa tacaala rabbiga awooddaa iskale oo koonka sidaa u milkiyey say ku suuro gashay cid asaga lamida in la sameeyo haye rasuulkii allana wuxuu yidhi dembi aad alla ka gasho midka ugu weyn waa midkaa sida aan annagu yeelannay u fiirso marka dhibna soo gaadho maxaan odhanaynaa dadka waxay u qaybsamaan 3 qaybood qayb waxa weeye qayb alla u gargaaray oo waxay yidhahdeen rabbiyow noo gargaar labada qayboodoo soo hartay waa kala daran yihiin qaybu mar alla marka dhib soo gaaro waxay leeyihiin awow yani fulanow ama shiikh haw yeerteen ama awow haw yeerteen ama qof aan la garanayn haw yeerteen gabalna waxay leeyihiin allay awowow waa isku qabanayaan haye waa isku qabanayaan waa marka meesha khatartaa la marayo marka uu qof inkaarayo qofku wuxuu leeyahay inkaaru kugu dhacday abkayba waa fulane haye waxaad abkayba waa fulan ula jeedaa waxaan u kacsada waa la yaqaano waxbaa ku dhaca war ilaahay maa laga xishoodo war ilaahay maa laga xishoodo war cirkan yaa alla la maamula soomaalida waxaa cajiib badan waxay dhahaan nin dhintay kobihiisaa dhaama markaasay haddana nin dhintay 24 saac u yeerayaan war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war dadka muslimiinta oo dhintay ducay kugu leeyihiin hadday waalidkaaga ahaayeen sadaqa iyo ducay kugu leeyihiin oy dad khayr la ahaayeen wax ka soo haray oo meeshaan yaalla ma lahan diintan ilaahay oo lagu tumtumanayo ha layska daayo ilaahay waxaan raalli kama ahane war cirka iyo dhulka wax alla waxa addooma jooga midqaala daratin ma hantaan buu alla yidhi aniga shirka ilama ahan buu alla yidhi mana ii kaalmeeyaanoo wax ilama qaban karaan buu alla leeyahay subxaana wa tacaala waayo allah qur-aanka wuxuu ku yidhi aayad kale yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid wardadow adinka dhammaantiin ilaahay waad u gaajoontihiin fuqara ayaa tihiin wax aad haysataan ma lahan haye alla waa alla idinka kaaftooman wax uu idinkaga baahan yaha la arag say ku dhacda ilaahay kayrkii in loo yeerto say ku dhacda cid aan allahayn in ilmo la weydiisto ama xoolo la weydiisto say ku dhacda cid aan allahayn in samada roobka keena la yidhaahdo ma haddii wax la qabsan karo cirkaan cadar baa ka muuqdo daruuraa saarana biyo lasoo daadsado haye ma la keensado wax intaasoo waxaad arkaysaa dad intaasoo meelood ka soo qaxay intaasoo meelood bay ka soo qaxeen awowaha iyo shiika iyo ugaaska ay intaas ka dambeeyaanna waa jooga maxuu qaxa uga dhici waayey aqalkooda marka la bililiqaysanaya muxuu uga qaban waayey war ilaahay maa laga boqo subxaana wa tacaala war waxa kan wax jira maahan ee dad yow dad ilaahay hala noqdo rabbi baa iskale uwoodag noocaasa oo u gaarka ah cid aan alla ahayn oo waxana kartaa ma jirto xaqiiqadu noocaas weeye marka taas waa midda uu ilaahay iska leeyahay subxaana wa tacaala rasuulkii allana uu leeyahay qofka alla cid kale ku daraa dembi la galo midka ugu weyn ayuu la yimid rabbulciisa qur-aanka wuxuu ku yidhi soo ma aragtaan maalin kasta waxaa la akriyaa oo salaad walba lagu soo celceliyaa suuratu alfaatixa suuratu alfaatixa cajaa'ibta ku taalla kaalaya arka waxaa ka mid ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahow keligaa baan ku caabudaynaa keligaa baan kaa kaalmo dalbaynaa diinta ilaah soo dejiyey oo dhan oo kitaabka qur'aanka ku taallaya sunnada nabiga ee saxiixa sala allahu alay wasalam iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin keliya ayaa tafsiir u ah wax dambe oo kuu dhiman oo diina oo alla kugu waajibi lahay ama lagaa mamnuuci lahay ma jiraan maxaa yeelay diinta islaamku waxay ka kooban tahay ayadoo dhan waxa adiga lagaa doonayo iyo waxaad adigu doonaysid waa labadaa keliya waxa adiga lagaa doonayaa waxay u qaybsamaan waxa waajibka kugu ah inaad fulisid iyo waxa lagaa xarimo ha samaynin lagu leeyahay waxaad adigu doonaysana waa mahe waa in lagu kaalmeeyo adduunka sirax lagaa dhowro aakhirana saqle lagaa koriyo intaas maxaa lagu hantaa waxa adiga lagaa doonayo markaad fulida ka gadaal baa la helaa waxa adiga lagaa doonayaa la hormariyo la yidhi wa iyaaka nacbud ilaahow adaan ku caabudaynaa adaankaa amar qaadanaynaa adigaan kuu khushuucaynaa kuu rukuucaynaa ku caabudaynaa si walbaba waa alle keligii cid kaloo cibaadole ma jirto haddii keligii cibaado la siiyey say ku dhacda inaan cidaan alla ahayn la caabudo haye waxaa la daba dhiga wa iyaaka nastaciin rabbiyow keligaa baan kaa kaalmo dalbaynaa
cid aan allahin lagama kaalmo dalbi karayo haddii rabbi keligii ou kaalmo dalabka yeeshay marka dhibna soo gaaro maxaa cabashada bani aadamka keenay marka dhibna soo gaaro maxaa dadkacsiga keenay marka dhibna soo gaaro maxaa awowo u yeerashada keenay rabbi keliya maa loo yeerto rasuulka dagaalkii beder markuu dhacayay sala allahu calayhi wasalam oo meesha khatartaa la marayey waa uu wayse qaatay rasuulku waxau alle ku beryey yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiid yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiid waxuuna rasuulku yidhi axad walboo kurba ku dhacdo oo akaartaa badiya ilaahay kurbada waa ka faydaa hadduu rabbi ku kalso yaa xayu yaa qayuum allaha xayiga oon weligii dhimanow allaha saacad walba taaganow adaan kaa gargaar dalbayaa naxariistaadaan gargaar kugu weydiisanayaa waatuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam allahayow maanta haddaad jameecadan halaagtid caalamka wax damboo kugu caabudi doonaa ma jiraan ilaahay nasri degdega ayuu keenay nasriga marka la keenayo muslimiinta malaa'ig baa lagu kordhiyey marka malaa'ig lagu kordhiyo ay la dagaalanto ilaahay oo uwada siiyey u fiirso lama dhihin malaa'igtaa idin gargaartay lama dhihin xooggiina la idinkugu gargaaray waxau alla yidhi wama nasru ilaa min cindi illaah nasrigu alle agti mooye meel kale kama iman jibriil baa wada lama dhihin mika'iil baa wada lama dhihin malaa'igtaa wada lama dhihin rasuulkaa wada lama dhihin nasriga alle agtiisa keliya ayuu ka yimaadaa u alla yidhi maantana wax yar haddaan helno waxaan leenahay awowo fulaan baa keenay ama waxaan leenahay sheekh fulaan bay ku tiri magaxiisa war ilaahay maa laga xishoodo war waxa alla leeyahay alla ha la siiyo waxaa rasuulku leeyahay rasuulka ha la siiyo ha loo ogolaado waxa ay awliyada iyo dadka wanaagsan leeyihiin ha la siiyo kulli waan kala baran doonaa maanta leanna wasaakan dhex yaacsanta waxaad moodaa inaan allah cirka iyo dhulka midnaba ka tali karin waxyaalaha cajiibka badan oo aragnay ka mid tahay waxyaalaha yaabka badan oo nala ku dhihi jira waxaa ka mid a magaalada la yidhaha muqdisho soo soomaaliya ma lahayn badda waxaa ka celiya nin weliya halaqa waxaa ka celiya nin weli ah abaarta waxaa ka celiya nin weliya cudurka daacuunka la yidhaha iyo cudurrada xunna nin weliya ayaa ka celiya afarta weli ee waxaa ku filowda b m-ka maxay uga celi waayeen nin bad celiya b m waa celi karaaha maa ka celiyaan waase baaba'adoo gubatay oo wallahi aad moodo inaan gurina ka taagnayne war ilahay ha laga xishoodo waxaan alla celin cidna ma celi karto badda hadda hadduu nin celinayo yaase la celin jiray yaase ka celiyay adduunka o dhan annaga haddii xamar nin naga celiyo ma ilaahay laga xishoodo subxaanahu wa tacaala ma alla dad loo noqdo ma rabbi loo sacabo hoorsado ma dadka mu'miniinta ducada ay kugu leeyihiin keliya u ogolaatid iyo sharaftooda oo alla laga xishoodo subxaanahu wa tacaala waxaan isku qaldaynaa wax maahan ee alla dad ka baqa aan noqono diinta alla ilaaliya allah subxaanahu wa tacaala suuraddaa la yidhaha suuratu alfaatixa ayuu wax walba noogu caddeeyey adaan ku caabudaynaa kaana kaalmo dalbaynaa waxay dadka muslimiinta ah u yidhaahdeen cid walba ee faataxo akraysay ee cid aan alla ahayn bariday ama u calaacasay ama talada u dhiibatay malaa'igta alla waxay ku tiraa laxnadu ha kugu dhacdee been badanidaa sawdigii hadda odhanaya ilaahow keligaa baan kaa kaalmo dalbayaa goormaad cid aan alla ahayn u yeeratay waayo allah qur-aanka wuxuu ku yidhi aman yujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaa'a alardi a ilaahum maca allah war bal ii warrama allaha qofka dhibaataysan ajiiba markau baryo oo dhibaatada dadka ka fayda oo dhulka markaad dhulka khaliif idinkaga dhigo idinku abuuro idinku nooleeyey ma allahaasaa cibaado leh mase alla kale war rabbiga noocaasa ma alla la caabudo micigiisa oo laga amar qaato laga boqon ayaa jira say ku dhici kartaa inuu jiro qaliilan maa tadakkaruun intaad waansamaydaan waa wax yar buu alla leeyahy ood wax garanaysaan waayo dhib markuu yimaado yaa wax cajiiba allah haye dhulka yaa nagu abuuray allah dhibaatada yaa naga fayda allah abaaro markay dhacdo allah loo cabtaa subxaanahu wa tacaala cid kaloo loo caban karo wax qaban karta ma lahan sidaa darteed axad walbow rabbigaa micigiisa cid kale ha yeelin markaad wax baryaysa rabbigaa keliya ka dhig waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam cid kaloo loo caban karo wax qaban karta ma lahan sidaa darteed axad walbow rabbigaa micigiisa cid kale ha yeelin markaad wax baryaysa rabbigaa keliya ka dhig waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam cabdullaahi binu cabbaas ayuu ka saaran daabad ou saaraa gadaal wuxuu yidhi yaa qulaam innii ucallimuka kelimaat wiilow waxaan ku barayaa kelimooyin diinta ka mida ayaan ku barayaa ixfid illaha yaxfadka rabbigaa waxau kuu diray ilaali rabbigaa waxau kaa reebay ka tag rabbigaa diintiisa xifdi adigana naar baa lagaa xifdin adduun iyo aakhirana waa lagu ilaalin salawaatu ullahi wasalaamu calayk
maxuu rasuulku daba dhigay ixfid illaha tajidhu tujaahak rabbigaa daacadiisa ilaali oo diintiisa ha la yicin rabbi micigaagow nasri iyo gargaar mar kasta la ahaanayaahe rasuulku muxuu daba dhigay sala allahu calayh wasalam idaa sa'alta fas'al illaah markaad wax su'aalanaysid allah keliya weydiiso alliya owliye allah alliya shiikow alliya ogaasow alliya kidaow midna ma uusan dhihin sala allahu calayh wasalam rabbigaa keliya su'aala buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rasuulkii alle waa kii naloo soo diray oo adduunkeenna iyo aakhiradeenna waxaan ku liibaani lahayn gacanta loo geliyey muxuu u oran waayo oradoo cid kale alla ku lamaanin muxuu u oran waaye waa cabdullahi binu cabbaaso ina adeerkii ee markaad alla baryaysid aniga alla igu soo daray muxuu u dhihi waayey sala allahu calayh wasalam rasuulku waa yidhi ducada qofku markuu alla baryayo hadduusan nabiga ku sallin ducada waa la xijaabay xagga rabbi looma rafco adila noocaa tilmaamaysaa way jirtaa oo qof kastoo alla baryaya waxaa laasima inuu salliga nabiga meesha keeno ku salliya nabiga laakiin ma aha nabiga axadka isaga la baryo salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan waa laisku dhex yaaciyey maxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waida istacanta fastacin billaah markaad gargaar dalbaysid oo nasri degdega u baahan tahay nasriga iyo gargaarka allah weydiiso cid kale ha weydiisana allah weydiiso hadalka nabiga cajaa'ibtiisa sii arag waclam low ana alumma waclam ana alummata low ijtamacat waa inaad ogaataa low ummadda oo dhan ay kulanto calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak ummadda oo dhan waxaa jooga mashriq iyo maqrib dad iyo dugaag iyo duuyo iyo jinni iyo insi oo dhan isku soo dar iyo xataa almalaa'ika oo cir iyo dhul joogta ama malaa'igta cirkaba ku nool isu keen kulligood hadday isugu yimaadiin inay kugu anfacaan cirbad caaradeeda waxa la eg waxuu rasuulku yidhi kuguma anfici karaan ilaa bishayin qad katabahu llahu laka wax xagga rabbi lagaaga qoro lawxulmaxfuud kugu qoran mooyaane wax kale kuma qaban karaan buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilma kuma sii karaan dhaqaala kuma sii karaan cudurkaama qaadi karaan sooma ara qof naftu jirriqleed oo lagu dhibay oo 29 xirsi loo gooyey oo 3 yani khidmo lagu dhameeyey oo 29 neef lagu dul gowracay oo sumul iyo samayn meesha la keenay oo nin kastoo shiikh loo marinayo loogu soo yeeray oo haddana waxba laga qabaleeyahay oo dhakhaatiirta adduunkana loo geeyo caafimaadna loo keeni la'yahay sooma arag sidaa war miyaan lagu cibro qaadaa waxa kan war rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala axadka wax qaban kare wax badbaadin karaa naftiisa ha badbaadiyo yowsan geeriyoonin canugna yowsan weligii ka dhimanin neefna yowsan ka dhumin bahalna ka cunin waa qofka wax qaban karaya war waxaan waa awood ilaahay awoodda ilaahay ha la ogolaado waxuu rasuulku daba dhigay walow waclam ana alummata low ijtamacat ogow hadday ummadda oo dhan u kulanto calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu llahu laka ummadda oo dhan hadday isku dayaan kulli inay isu yimaadeen inay ku dhibaan waa inaad ogaataa inaysan ku dhibi karin waxna kuu geysan karin ilaa wixii alla kuu qadaray mooyaane maanta dhan haddii madaafic iyo bi'an lagugu garaacayo jiibab haddii dayaarada lagugu duqeeyo waxa adduunka joogo dhan hadday seefa kuu soo qaataan wax kaa qaban kara ma lahan wixii ilaahay kuu qoray mooyaane ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wax ku dhibi kara ma lahan rasuulka alla waa lala yaabay maxay ku dhacday saas inay noqoto wau ka jawaabo waxau yidhi ruficat alaqlaamu wajafat asuxuf warqadihii wax lagu qorayey maalin hore ayaa la kor yeelay oo qoraalkii waa la joojiyey suxuftii iyo warqadihii wax lagu qorana way engegeen qalmaantii iyo warqadihii way kala engegeen waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waa uu xadiid ku sugan saxiixa ku caddeeyey in lagu yidhi intaan samaawaadka la abuurin 50 sano ka hor qalinka inuu alle ku yidhi uktub ee uu yidhi maxaan qoraa maa kaana wamaa yakuunu ilaa yawmi alqiyaama wixii horay u dhacay iyo waxa dhici doona ilaa qiyaamo laga gaarayo cirka iyo dhulka abuuritaankooda 50 sano ka hor ayaa alla qoro yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh see wax looga bedelaya maanta ma ilaahay baa waxa uu qoray cid wax ka bedeli karta la arkaa ilaahay ha laga xishoodo walaalayaal dad ilaahay aan noqonno rabbi keliya aan u sacabo hoorsanno axadka cid aan alla ahayn barya ama cid aan alla ahayn ka baqa dembi la galo midka ugu weyn ayuu galo rasuulka allah odhanaya sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah sala allahu alayhi wasalam ilaah baa sharifay tacdiimin iyo taqdiir marka laga sheekaynayo midda uu rasuulku leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waxuu rasuulka ku magacaabay bashiiran wa nadiira waa mid dadka raaca janno ugu bishaareeya dadka khilaafana naar uga diga salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa allah ku galladaysa inuu u shafeeci doono dadka raaca
in xawdkiisa laga cabi doono axadka salligiisa iyo sunnadiisa iloobana in dariiqa jannada laga leexinayo axadka hal mar ku salliyana in 10 jeer ilaahay u dembi dhaafayo darajadaas ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayh wasalam waxau sameeyey qofka sameeya xubbi ou nabiga u qaba darti janno ayaa u waajibtay haye laakiin isagoo sida ah rasuulka rasuulow ii gargaar in la yidhaaha lama ogolaa waa in la kala gartaa waxaa la baryaa oo alla kaliya waayo allah baa qur'aankiisa waxau ku odhanayaa walaa tadcuu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min addaalimiin alla sukadiisa haddaad baridid wax aan ku anfacayn kuna dhibi karin sidaa haddaad yeeshid ogow oo daalimiintaad nabigow ku jirtaa nabigaa lagula hadlay axad walboo nabiga ku dayanayana sidaas ayaa lagu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh war rasuulka alle markuu reerkiisa la hadlayey xadiidka ku sugan muslim iyo kayrkiisa oo weli ma adnan akrin waxau isugu yeedhay reerkiisa waxuu ka soo bilaabay qabaa'ilka sare yani qurayshuu ka soo bilaabay bani kacab ibnu lu'ay waxau ku soo xijiyey u soo waday reer bani cabdimanaaf reer cabdilmudalib so u soo waday waxa u yeedhay safiya oo nabiga eedadii ah adeerkii cabbaas markii ugu dambayda waxau yidhi yaa faadima binti moxamed waa gabadhow rasuulku dhalay oo makhluuqa ugu jeclaa sala allahu calayhi wasalam haye faadima binti moxamed inantayday saliinii min maali maa shi'ti buu yidhi maandhay xoolahayga wax alla waxaad doonto iga weydiiso waan ku siinayaa laakiin laa ugnii canki min allahi shay-a cadaabka alle in yar oo kamida kaama badbaadi karo haddaadan rabbigaa ka cabsanin rabbi haddaadan ka cabsan cadaabka alle in yar oo kamida kaama badbaadi karo ee rabbi ka cabso waxaa rasuulku u shafeecaa allana u gargaarayaa waa qofka ka baqa allah haye laakiin cidaan alla ka baqan rasuulka allah ka cudur daartay reerkiisa wuxuu ku yidhi laa ugnii cankum min allahi shay-an cadaabka alle in yar idinkama difaaci kara haddaanan iimaan iyo diin iyo alla rumayn la imaan ee rabbi ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu odhanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh war bal suuraysta haddii inta cibaado layska deeyo salaada layska dhaafo soonka layska dhaafo nabigu kuu shafeecayo janno layska gelayo nabigu muxuu inantiisa wara waaye gabar nabi dhalaatee iska seexo anaa kuu gargaari dooneen muxuu u odhan waayey sala allahu calayh wasalam miyuu weligii yidhi arrinta noocaasa laa ma dhihin bal waxaa alle ku soo dejiyey rasuulka qul innii laa amliku lakum min allahi daran walaa rashada waxaad ku tiraa dadka nabi alle anigu idiin hana maayo xagga alle dhib iyo nafci midnaba iyo hanuun haye qul innii lan yujiranii min allahi axad walan ajida min duunihi multaxada anigu alle sukadiisa wax i badbaadiye heli maa rasuulka allah saa dheh lagu yidhi alle sukadiisa meel aan gala heli maayo cadaabka alle meel aan uga cararo heli maayo ilaa balaaqan min allahi wa risaalaati inaan ilaahay diintiisa dadka gaarsiiye maahane inaan risaalada dadka u caddeeya maahane inaan xaqaa ku socdo mooyaane cid cadaabka alle iga badbaadi karta ma jirto ku dheh baa nabiga dadka lagu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh meesha rasuulkii alle ou sidaa leeyahay cid kale maxay malaysanaysaa ma cid kalaa wax qaban doontaa waa cajaa'ibe war miyaan weli la fakerin war miyaan dadku caqli lahayn war miyaadnan weligiin akrin suurad la yidhaha cabasa oo ilaahay ou ku yidhi yawma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih maalinta qiyaamada waa maalin qofka ou ka cararayo yafiru almar'u min akhiih qofka ou walaalkii ka cararayo aabbihii ou ka cararayo ninkuu haweentou qabay ou ka cararayo ilmihii ou dhalay ou ka cararayo qof walba arrinta asaga ku timid baa ku filan buu alla leeyahay likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih axad walba sha'nigiisaa kaasiyey cid walba waxa ay geysataa ku filan war bal arrintaa arka cajaa'ibteeda arka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala haye cidka qof ka cararay canugow dhalay islaantow qabay iyo dadkii ehelkiisa ahaa adiga miyuu ku caawinayaa adiga miyuu wax kuu qabanayaa war miyaan dadku caqli lahayn war si kasta haddii la yeelo ma qabiil baa wax kuu qaban ma nin aad jeceshaa wax kuu qaban axad walba tiisow la cararayaa caaisha radia allahu canha ayaa oyday markaasuu rasuulku yidhi maxaad la ooyeysaa sala allahu alayh wasalam waxay ku tidhi yaa rasuul allah ehelkiina miyaadan xasuusanaynin waxau rasuulku yidhi caaisha marka siraadka la marayo iyo marka qof walba kitaabkiisa la siinayo cid xasuusan kartaa ma jirto laakiin haddaad halkaas soo dhaafto xawdkayga waad iga heli doontaa buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calaykum waa khayru khalqi illaah
oo rasuulka inta lagu yidhi dadka yaad ugu jeceshay ayuu yidhi caaisho ragga yaad ugu jeceshay aabbaheed allah subxaanahu watacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi suuratu namal aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahun maca allah tacaala allahu cama yushrikuun war axad marka dhibaata qofka axad ka gaarta ajiibaya oo dadka dhibaataysan dhibaatada ka faydaya oo qofka la dhibaato geliya baryihiisa aqbalaya oo dhulka khaliif idinkaga yeelay kaas miyaa khayr badan mase midaan waxba ahayn allah awoodahaa khayr badan war alla micigiisa miya ilaah kala yahay war mid alla lala baryo miyaa jira ma jiro alla waa ka sarreeya waxaad igu shariig yeelaysaan xaqiiqadu sidaa weeye alla keligii ayaa laga gargaar dalbaa awliyana wax ma qabato inta laga gargaar dalbo rasuulku xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah war markaad su'aalanaysid rabbigaa su'aalo war kolkaad gargaar dalbaydidna rabbigaa ka gargaar iyo kaalma dalab ya allah ka kaalma dalab allah gargaar weydiiso keligii buu gargaar ka bixiya subxaana wa tacaala yaa kugu yidhi ilahay kayrka u ciidanso aayadaha alla dhegaysto subxaana wa tacaala uu leeyahay allah waxau yidhi waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim gaafiluun war yaa ka lumid iyo baadi badan oo ka qaymo daran axad baryaya oo u calaacalaya oo wax weydiisanaya alla sukadiisa axad aan isaga ajiibi karin ilaa qiyaamo laga gaarayo haddii qiyaamo la gaarana aan waxba ka ajiibayn ducadiisa oo dhanna halmaansan war qofkaan qabriga ku jiro awliye allayda ku haydin maba ku maqlayo ma ku ajiibi karo ducadaada waxba kama oga waxba ma kuu tari karayo xagga ka keentay yaa ka lumid badan yaa ka qaymo daran axad alla sukadiisa qof aan waxba u qaban u calacalaya maanta dhan wallaha wax ka qaymo daran u jirin wax ka khayr daranna aan la arkin waa suuratu xaqaas waxau kaloo allah yidhi subxaanahu watacaala bal aayaadka alla dhegaysta ina aladiina tacbuduuna min duuni illah laa yamlikuuna lakum risqa fabtaguu cinda allahi risqa wacbuduuh washkuruu lahu ilayhi turjacuun kuwa aad baryaysaan ood u cabanaysaan ilaa baryaha laguu sheegayo cibaadadu waa isla mid oo alla ka sukeeya idiinma hana karaan risqi idiinma hana karaan cunno iyo caafimaad iyo xoolo kala midnaba risqiga waxaad ka dalabtaan alla agtiisa alla caabuda alla ku shukriya ka amar qaata xagga allaa la idiin celinayaa allahna wax idiin qaban kara allahna idinla xisaabtamaye rabbi u cabta u calaacala cadaabka naga kori ilaahda caqiido wanaagsan iyo camal fiican ula imaada rabbi xaggiisana u laabta waxaan aad baryaysaan oo fulaanow iyo hebelow aad ku haydaan wax ay idiin hana karaan malahan hadday wax tari karaan adduunyo kama tageen misaal wax yar baan kutusayaa waxyaalaha yaabka badan waxaa kamid a war inkaar qabooye inaan dadku aanu caqli lahayn waraxaad adduunka ka tegay oo hal qayd looga qaaday oo gaaridii asaga u dhexday ay nin kale guri u xaaqayso oo xoolahooda isagu ku faandaallay jira qolo kale ay dhaxleen oo gartow isagu naqi jira qolo kale ay naqayso oo qabriga dhexdiisa aboor ku cunoo hal qayd kaliya adduunka kala tegey oo xataa sariirtiisii aan lala aasin maada wax kuu qabanaya maada wax kuu qabanaya waa yaabe maalinta qiyaamadooda adiga odhanaya awliyaa wax qaban doonto ii qaban doontee war nin yuubkiisii ku yaallo alantii ka lubanayso yani ay baajadiisii ku taallo oo wax ka guda ka goyal arag oo qaawan oo qurux daran oo yihidii ku taallo oo asagii dhar xira karina sow adiga wax kuugu qabanaya waxaaba ka lubanaya alantii iyo wixii dareen haye soodi wax kuugu qaban yaa akhay maa fakertaan ma eegtaan waxa kan maa dib u fiirsataan rasuulka allah sala allahu alayh wasalam muxuu ku yidhi caaisha markay ku tiri siraadka marka la marayo sow dumarkiina wax u qaban maydaan caaishay waktigaa xoog laysuma helo sala allahu alayh wasalam ambiyadii allah cudur daaranaysa markaasuu leeyahay aniga waxaan raacaynaa markab ou hebel wado say dadka gabal yidhaahdiin shiik ilaahay ay ku been abuurteen markab baa jira isaga dadka dariiqadiisa markabkay ku jiraan nabiyaalka iyo malaa'igtana markabkay kor ka saaran yihiin bal meesha ay shaydaannimadaasi gaarto u fiirso war kufriga ka daran waa maxay haddaad tiri nabi maxamed sala allahu alay wasalam cabdulqaadir baa u shafeecaya oo marka cabdulqaadir wato nabi maxamed saaran yahay cajaa'ib badan war alla ka cabsada subxaana wa tacaala waxaanaad ka daba ordaysaan joojiye cajaa'ibta kale waxaa kamid a meesha inaysan awliyo ahayn ee ay dulmi kala ku jiro qabiil walbaa wuxuu leeyahay nin ayagoo weli u ah oo qabiilka ka dhashay haye qabiil walbaaba kuwii geela dhici jiray oo weligood aan xoolo xalaala quudan oo geel la soo dhacay caanihii lagu habay
inta hadda yimideen baydan awliyaana xarab diineed ma yaqaaniin si loo istajooda garan maayaan 9 naagood bay qabaan oo sharcigu meel ugu baneeyey aan la arkin dadka xoolahooday xaaraan ku cunaan qabiil iyo qabyaalad bay ku shaqeeyaan xukunka daaquudka iyo duwalka shaydaankaana ilaah baa doortay iyo diin bay wadaan iyo allow dawladda daysay ku hayaan wax xaggay ka yimideen haye niman anagu aan garanayn inay geelqaadi yihiin ayaa lagu leey waa waliyaal cajaa'ib badana wariyaa geela la joogo astafur anaa la joogay xoola sidaasa keliya ayaa lagu koriyey haye iyo waa dadkii oran jiray 40 sano ninaan gaarin haddou dukado yaa u soo coodaya wariyaa kuu shaqaynaya adiga aan 40 gaarin dukanaye markay garoobeen ay 40 ama 50 gaareen bay dhin awliyaa banu nahay hadda haye bal maqla awliyaa aad sheegaysan aragne kollay awliyaa waatiin laakiin shaydaanka awliyaa u tihiin allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kolka dadka baryaya soo ka hadlaya dadka inta xoola bixiya odhanaya awliyadii wax noo qabta hadalka alla dhegayso waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qidmir war kuwa aad baryaysaan alla sukadiisa xuubka timirta ma hana karaan xuub timireed waa lafta timirta xuubka ku jira ma hana karaan in tadcuuhum haddaad barisaan laa yasmacuu ducaa'akum adinka baryihiina maqli maayaan waxay idinka maqlayaan ma lahan walaw samicuu hadday idin maqlaan oo la qadara inay idin maqlaana ma stajaabuu lakum ma idin ajiibi karaan fardan wa taqdiiran haddii layska qadaro inay idin maqlaana ma idin ajiibi karaan wax ay tari karaan ma lahan wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamadana shirkigiina way ku gaaloobayaano ilaah annaga nama caabudin annaga nama baryin adigaa shaydaannimo watay saas ayay maalinta qiyaamada odhanayaan bal hadalka alla u fiiriyo subxaana wa tacaala sida uu rabbi uga sheekaynayo dadka baryaya alla sukadiisa waxay ayagu ama ku magacaabeen awliyo amay ku magacaabeen ashraaf amay ku magacaabeen hebela calaamayaa badan baa lagu arkay war in misaa calaamayaa badan lagu arkay oo shayaadiin ah war alla ka baqda subxaana wa tacaala war rabbi ha laga baqdo war qofku waxuu sheegtay weli kuma noqdo xaggeesa lagu arkay nin aabi hoogaa uu iska roonaa jira odagii baa dhintay asagaa jagadii dhaxlaya welinimadii waa la war welinimada ma laysku dhalaa war haddii welinimada laysku dhabo nabi nuux maxaa wiilkiisii loogu hor cadaabay waa nabi nuux markaasi markii la cadaabayo yaa rabbi inahu laysa yani inahu min ahli ilaa wiilkan ahalkii oo kamid yahay alla muxuu ku yidhi inahu laysa min ahli ahalkaaga kamid ma ahan nin aniga ay caasiyey nabadgel inaad istidhaahdaana ma fiicne ha igu oranin bu alla yidhi subxaana wa tacaala war ma u fiirsado hadalka rabbi haye marka haddii welinimadu ay dhaxal tahay ama laysku wareeji karo nabi nuux muxuu wiilkiisa nabinimada qaar u sii waayey ama oran waaye waa wiilkaygii weli ha noqdo muxuu u oran waayey 950 sano dadka diin ugu yeerayey war allaha laga cabsado subxaana wa tacaala war yaan xaqa layska indha tirin afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha war dadku ma yaysan qur-aanka alle ku tadabburin oysan eegin mase qalbigay ka qunfulan yihiin waaba labada mid ah wax kala ma jiraane allaha laga boqo subxaana wa tacaala rabbi waxau yidhi bal arag waa ka dadku ay leeyihiin marka aan wax baryayno kuwa aan baryaynaa alla xaggiisay wax nagala qabanayaan alla hadalkiisa arag subxaana wa tacala aayaddan dhegeyso qul idcu aladiina zacamtum min duuni illah kuwa aad sheeganaysaan alla sukadiisa inay wax qaban karaan laa yamlikuuna mithqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi ma hananayaan dhuuraxasa qadarkeed iyo wax ka yar samaawaadka iyo ardada kama hanan karaan kuwa aad baryaysaan ood u yeeranaysaan ood u calacalaysaan ood ilaahay wax nagala qabta odhanaysaan ama xataa markaad alla baryaysaan aad leediin alla iyo awliye alla ku lamaaninaysaan samaawaadka iyo ardada cirba caradeed kama hantaan mana kalahan mahwa la daba dhigi wamaa lahum fiihimaa min shirkin umana sugna samaawaadka iyo ardada dhexdooda waxaa ku jirana alla shirka kulama ahan waxay ayagu iska leeyihiin qadar yarba allaha ka dhiga horta ma lahan haddana alla shirka kulama ahan midda saddexaad wamaa lahu minhum min dahiir kuwaas aad baryaysaan axad kamiduuna alla uma kaalmeeyo 3 waxyaalood baa qofku wax ku qabtaa inuu shayga leeyahay iyo inuu qofka shayga shirka ku leeyahay iyo inuu la taliyo iyo la kaalmeeyo 3 midna alla uma ahan baa lagu leeyahay war cirka iyo dhulka cirbada caaradeed kuma lahan waa kow war marada labaad ilaahay shirka kulama ahan waa labo war marada saddexaad alla uma kaalmeeyan subxaana wa tacaala seed ku garateen inaad baridaan ood wax noqonta tidhahdaan caqli darana oo qayba darana dadku rabbiyow hana luminin oo hanaga bedel qaadan suuratu saba ay aayaddaas ku jirta war allaha laga cabsado subxaana wa tacaala war xagga hala ilaaliyo yaan diinta lagu cayaarin war dad yow islaamka ku dhaqma oo yaan kitaabka alla lagu tuntumanin war rabbigiin keliya barya
oo rabbigiin keliya tala saarta oo amarka alla qaata war alla kaliya ayaa la baryaa baryuhu waa cibaado waayo rabbi waxau yidhi subxaanahu watacaala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin nabigow dadka waxaad ku tiraa rabbigiin barya alla wou idin ajiibayaa allah barya wou idin ajiibayaa rabbi waxau yidhi kuwa cibaadadayda iskala weyn waa kuwa baryahayga iskala weyn buu odhanaya alle ilaa cibaadada lagu sheega waa baryaha alle waxay geli doonaan naarta jahanamo la yidhaha ayagoo daliiliina oo dulli iyo balaayo ay dushooda ku raran tahay ayay naartaa la gelayaan oo wax ay gacan ku hayaan aan la arag qaymo darrada iyo dhibka haysta ay suuratu kaafir bay ku jirtaa marka baryuhu waa cibaado dadka ma aysan fahmin cibaadada rabbi waxau dadka u khalqay in isaga la caabudo dad baa u haysta cibaadada soonka iyo salaada inay tahay wixii la doona la baryi karo war rabbi kayrkii qofkii baryaa waa ku gaaloobaya maxaa yeele baryuhu waa cibaado allah waxau yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin maalin walbuu qofku akrinaya suuratulfaatixa sirta ku jirta adag muraadka laga leeya waa maxay qofka muslimka inuu rabbi si dhaba ugu xirmaa la doonaya allah ayuu adaan ku caabudaynaa adaan kaa kaalmo dalbaynaa adigu wax noo qabo haddaad sidaa ku dukatay markaad ka soo baxdaa tiri awliya allah alla kayrkiisa kidaa waad leeda war qofka muslimka inuu sadaqa bixiyaa loo ogolya oo waalidka u bixiya hadday islaam ahaayeen haddausan wakti u samayn laakiin xoolahan ou leeya anigu weli baan u bixinaya oon wax uga doonaya meel ay diinta uga sugan yihiin ma lahane rabbigiin keliya barya alla keliyana ku xiraada oo xaqa ilaaliya macnuhu sidaa weeye rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam ina adducaa huwa alcibaada ducadu ayada oon baa cibaado ah xadiidka imaam axmed abu daawud iyo tirmidi iyo nisaa'i baa soo saaray ibnu maaji sanadkiisa waa xasan ducadu waa cibaado axadkii rabbi kayrkii beryi alla kayrkii ayuu caabuday waana ku gaaloobaya la socda arrinkaa isaga ah rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi laysa shayun akrama cala allahi min adducaa shay ma jira oo alla ka jeceliya in la baryo wax kasta waxau alla ugu jeceliyay asaga in la baryo laga amar qaato waa xadiid xasana oo tirmidi iyo ibnu maaja soo saareen waxau kaloo rasuulku yidhi man lam yas'al illaha yagdab caleyh axadkaan alla su-aalan alla waa u caroodaa haddaad rabbigaa baryi weyda rabbi waa ku caroonaya waa xadiid xasana tirmidi iyo ibnu maaja baa soo saaray war eega sida arrinku yahay war rabbigiin ka cabsaday alla kaliya barya oo rabbigiin keliya ku xiraada oo qofka welinimo doonayo adiga welinimada axadna kaama xige rabbiga caabud oo dadkaan aad welinimada ku koolaynaysaa ka daya dadka allah xisaabaya qofkii rabbiga caabuday alla asagaa garanaya ummadda allah u dahirinina dadkaan aad ammaanta la daba taagantihiin oo gabalna janno ku qoraysaan gabalna naar ku qoraysaan iska deeya dadka allah xisaabaya axadkii khayr ku dadaala wanaag u rijeeya qofkii xumaan sameeyana cadaabka alla uga baga dadkana ka dalba inay tooba keenaan oo wanaagga ku dadaalaan rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda ashadaa'i waalkarbi falyugtir ducaa fi rakaa axadkay farax gelinayso alla inuu ducada ka ajiibo markay dhibaata jirto sida iyo kurbo ducada ha badiyo marka barwaaqadu tahay marka ay barwaaqadu jirto ducada ha badiyo waa xadiid tirmidi ku sugan oo xasana ducada ha badiyo allaha ka cabsado ha dadaalo rabbiga kayrka ha baryo iyo awliyo ha yeela iyo ma dhihin alla ha baryo laleeyahy allah iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin aayaddaa ku dhaqan qof aayaddaa ku dukanaya alla kayrki baryaya markau sadaqa bixinayo alla kayrki u bixinaya see la yeelaya waa dadka kayra dhaansanayo alla kayrka u yeelaya o is ilaaliya war rabbigiin ka cabsada war alla ha la baryo oo alla amarka ha laga qaato oo diinta alla ha loo shaqeeyo oo qof walboo muslima oo alla caabudaya oo aan xaaraan ku soconin rag iyo dumar waxu doon ha noqdo inuu weli alla yahay u ictiqaadiya oo ilahay agtiisa wanaag ku leeyahay axad kastoo ku aragtiin xumaato iyo diin la-aanna inuu faasiq yahay ogaada rabbi ha laga cabsado dadka ha la nabadgeliyo xaqana ha laysu sheego oo xumaatada ha laga tago sidaas ayaa dadka islaamkaa laga doonaya jaanibka la doonayo in dadka muslimiinta ay wax u qabtaan waa inay rabbigood caabudaan oy rasuulka ku daydaan sala allahu alayh wasalam allah subxaanahu watacaala isagoo noo sheegaya awliyada loo yeeranaya inay baatil tahay waxau yidhi lahu dacwat lxaq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله دعوة حق الله سبحانه وتعالى لكن ألست كديسة كوي دتك أيرانيان وحي كأجيبيان ملحن وحينا لم يجيب بقال لي عيال بيو كجران عيال كالبابك كفريستي إيه حانت وهاتي بيو كالضا كوايا بل بيو عيال كجران oo loo gacan haatiyey biyow kaalada ma ku imaanaya ma uu gaarayo oo wax uu ku soo darsada ma hayo haye midda kale ceelkii ma geli karayo qarka unta fadhiista way biyow kaalada ku haya
dadka kaafiriinta ducadoodana wax aan baari ayn ma ahan oo alla kayrkii baryaya war haddaad sadaqo bixinaysa rabbi darsi u bixi haddaad nadar gelaysa allah ka gal alla kayrka qofki u nadra waa ku gaaroobayaa rabbigaa kaliya caabud waxau alla yidhi ina aladiina tadcuuna min duuni illah cibaadun amhaalukum kuwa aad baryaysaan oo alla sukadiisa waa addooma adinkoo kale ah hay adinkoo kale way baa adinkoo kale maxaad isugu xiriiraysaa marka maa rabbigaa ka baqatid subxaana wa tacaala allah waxaan weydiisanaynaa xaqa inuu nagu sugo dad garta in alla keliya la caabudana uu naga dhigo mawduuca kan axad walba oo muslima ayaa laga doonayaa inuu ka faa'iidaysto haddii rabbi qadaro insha allahu tacaala qayb isaga kamid a ayaanu kusii dari doonaa axadkii isagu markaa dhegaysta ee ku qanca waa inuu ku dhaqmaa axadkii masaa'ilkan ka warrama qaarkood ka sakiyana waa inuu yidhaha maxaa kuwaa laga wadaa dalaa-ilna waa inuu doontaa qofku laakiin ra'yigii inuu ka socdo ma ahan rabbi sidaasan hana waafajiyo dad diinta u shaqeeyo oo xagga ilaaliyana allah ha naga dhigo subxaana wa tacaala wa aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اقم دولة الاسلام على وجه الارض كلها واجعلنا سببا لها رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة